أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قالك إيكو حرن جنال كيك مناس جنال ميلو البعدونك جوكتان إنا يقود عافمات قبتان رجينا فلنا دانو عصبتا جنال سبسكرايب نصار سوكال الموقالك لايك نصار فيديو غنا أصحاب تادنا وشاركنا وحي رايقين قيبت كومنتيغان نوغرب أتيادا وما تسنتين عيد الله ولا لا عصب سودو هذا قعم فورنيو قلبي إذن جعل كسود هذا ولا عليه ولا جوك جريدين كانوا حايدين ليهاي مدح كركيس عيسى رنتهين جسدينا جنة الفردوس الله كديقو دنبكين إيكي والدكينا الله عافيه آمين يا رب العالمين. ومركا لأي موقالك لو عصب إي قصة عصبة يا مانتا إذي وضع قصدان وحارجينا هدية دميستid adiga gabadhan waxa ay sameysay ma sameyn lahayd waaye ina ila wadaagta jeclahay ra'yigaaga fikirkaaga iyo sida uu aragtay qisada markii aan muuqaalka dhameysato qisadayna intaan u guda galin marka hore aan ku sallino nabigeena maxamed allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina maxamed sallallahu alayhi wasallam. waxa jireen laba gabdhood oo saaxiibo ah lagu kala magacaabo Safa iyo Marwa ayaa lagu kala magacaabo gabdhaha waxay ahaayeen gabdho daris ah oo deganaa laba guri si kala jeedo yani waa hal leen way midna gurigeeda dhinacana u jeedaa tan kalena gadiga kaleenta ayuu gurigeeda u jeedaa. marka gabdhahan waxay ahaayeen gabdho aad saaxiibtinimadooda ay u sareyso isku dhaarta yaraantiina soo bilaabmatay saaxiibtooda wada ciyaari jiray wada cuni jiray wada farxi jiray hadda wada murugo jiray ay ahaayeen hal iskuul ay wax ka soo wada baranayeen hal galaas hal kursi ay wada fadhiyeen gabdhihii dugsiga sare markii ay dhameeyeen sidoo kale jaamacad ay isla wada galeen jaamacadiina hal kulliyadood ay isla wada baranayeen. labada gabdhood Safa ma ahee Marwa waaye ayaa waxay jeclaatay wiil markaas jaamacad ay wada dhigtaan ay aad u jeclayd waay Safa ma Marwa waay ay aad u jeclayd saaxiibtaan way ka wareysay ee Safiya ah laakiinse Marwa ma sameyn jirin inay wiilka jecelkeeda u sheegato maadaama ay gabartahay way xishoonaysaa waxay islahayd asaga ayaa laga yaabaa inuu ku sheegto uu jecelkaaga dareemo yani waxay ahayd gabar mar walba rajo ku nool ahayd. waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah ayadii oo markaas jaamacadii dhamaatay xilliyada ugu horeeyay ayaa banaanka gabadhii Marwe ahayd waxay kasoo doonatay alaab kadibna banaanka ayaa waxay ku aragtay wiilkii ay jecleed ee mar walba ku riyoon jirtay inuu soo bandhigto xiriir ama jecel uu soo bandhigto nasiib wanaag laakiin waxaa dhacday wiilkii in gabadhii uu rabitaan dhinaceeda uu qabto kadibna jecel uu soo bandhigtay inay xiriir la sameeyo. gabadhii way ku farxday wayna ka aqbashay kadibna saaxiibadeed Safiya ayayna u sheegtay ama Safa waxay dhahday walaalay ninkii aad jeclaa intaas oo dhan aad sugay maanta wuxuu ii soo bandhigtay dhahday xiriirkina waa ka aqbalay. gabadhi Safeed aad ay ugu farxday maadaama ay Marwa saaxiibteed lilaahi ay tahay farxadeedana ay jeceshahay way ku farxday maadaama ay ku guuleysatay jaceylkii intaasoo sano oo halka dhinac ahaa sida iyadoo ahayd. waxaa dhacday muddo yar in gabadha markaas Safiya ayadana wiil ay xaafada daris ku ahaayeen oo cid lacag leh oo taajir ah kasoo jeedo oo gabdhaha oo dhan ay jecel yihiin gabdhaha oo dhan saas u dabacararayaan laakiinse asaga markaas wax aan siinaynin maxay ahayto ihtimaam af Soomaali maxaa lagu dhahaa wax yani markaas yani attention uusan siinaynin laakiinse gabdhaha ay aad u jecel yihiin ayaa waxaa dhacday gabadhii Safeed ayadana in lama filaan ah oo wiilkii rabitaan oo xiriir ah uu soo bandhigto oo jecel ah. gabadhii ayadana way ka aqbashay maadaama wiilkan family fiican uu kasoo jeedo sidoo kale intan xaafada la wada deganaa oo la iswada yaqaano wiilka way ka aqbashay kadibna saaxiibteed Marwa ay u sheegto waxay dhahday qof yahay wiilkii dariskeena ee hebel ahaa cidda taajiriinta dhaleen ayaa maanta anigana xiriir jecel ii soo bandhigtay waana ka ogolaaday. labadii saaxiibadood farxadoodii farxad ayay sii dhalaysaa. waxaa go'aan lagu gaaray in hal mar la wada sameeyo meherkii hal mar arooska la wada dhigo hal mar la isla wada guursado gabdhihii sidii ayaana lagu heshiiyey. labadii gabdhood hal mar ayuu meherkoodii iyo arooskoodii wada dhacay midba midda kaleento ninkeedii hadda wuxuu u watay shahr al-asal ama bisha malabka ma fahanteen af Soomaali kullee yani 7 waaye 7 bax ama maxay to meelaas inay 7 kusoo galaan markii 7 wadanka looga baxo waaye si markaas waqti kaleente u soo wada qaataan lamaanahan hadii ay haystaan way dhaqaalo. waxaa dhacday marka in laga soo laabtay bishii malabka
ama shahr alcasalkii lagu soo laabtay wadankii labadii gabdhood waxaa dhacday inay hal mar uur wada yeeshtaan waa Safa iyo Marwo aad iyo aad ay farxadoodii gabdhii usii laba laabantay mid walbana ninkeeda waxay kula nooleed nolol farxad leh jacayl leh oo maasha Allah tabaarakallah ah waxaa dhacday marka in bilihii ay iskuraan sidoo kale labada gabdhood waxaa la sheegay in hal mar ay wada dhalayaan dhakhtarka uu sheegay taariikhda dhalitaankoodana sidoo kale ay isku soo aadeyso waa wax cajiib ah samaha waxaa dhacday marka gabadhii Marwe ahayd in markaas yani xilligii dhalmada loo qabtay ma xilliga ka horeysay inuu xanuun ku soo boodo kadibna saaxibadeed Safa ay soo wacday waxay dhahday saaxibi xanuun ayaa igu soo booday dhakhtarkaana la qaaday gabadhii Safeed ayadana xaamilo ah oo 9kii ah ay soo orday dhakhtarkii timid saaxibtii markaas Marwe idila uu kala keenay waxayna dhashay gabar ay dhashay bas maalmaha marka ay isbitaalka ku jiraysan waxay ahayd 3 maalmood ay ku jiraysay isbitaalka sida cunug xaaladiisa loo ogaaday caafimaadka waxyaabo dadka caadiga u dhal xaaladaha qof inoo hal maalin laba maalin hadii markaas xoogaa barbaleema yar u jirnay ilaa 3 maalmood uu ku jiri karaa qofka caadi u dhalaya ilmaha 3 maalmood inta ay dhakhtarka ku jirta ayaa waxaa dhacday gabadha Safa ahayd in dhiig markaas uu ka imaado maxay ahayd uu soo furmo isla markiina dhakhtar lala orday dhakhtarkii markii la geeyay waxaa la operation waaya la dhahay oo waa la qalaa saaxiibteeda soo wacday waxay dhahay saaxibi aan xanuuna igu soo booday dhakhtarkaan la dhigay operation kaasana marka waxay tiri la dhahay waa lagu kala keenaa adiga ilmaha calooshaada ku jiro maadaama ay khatar noqonayso hadii la dhaho waa la sii sugaa ama fool caadi ah la sugaa hadii la dhaho waxay dhahday saaxiibay ilaaha ku fududeeyo aniga waxay dhahday ninkeyga sugaa ninkeyga markuu ii imaado kadibna inuu ku imaana oo ku soo siyaarna dhakhtarka kugu imaana maanta dhakhtarkii ayaan ka bixi rabaa waxa saas dhehaysa waa Marwo waay maadaama Marwo ay ayada muddo yacni 3 maalmood ay dhalan tahay oo isbitaalkana ay ka bixayso marka waxay dhahday odigeyga sugaya oo ii imaanayo si markaas alaabtii iyo cunugii uu ila qaado oo guriga ila geeyo kadibna waxay dhahday markaan geeyo cunugtii guriga waa soo baxaa oo ku imaana oo siyaara kugu imaana adiga iyo babyga yar aad dhali doontid sidii ayaa lagu kala tagay waxaa dhacday gabadhii markaas Safa ahayd inuu Ilaahay kala keeno waxayna dhashay wiil ayay dhashay waxay weysay saaxibadeed oo aanan u imaanin maadaama gabdhahan ay ahaayeen 2 gabdhood oo saaxiiba oo ruux u dhaxayso sidoo kale markii ay Marwo dhashay waa tii Safiya ayadoo xaamilo ah ay ugu tagtay dhakhtarkii ay soo booqatay xaaladeedii iyo xaaladda cunugana ay soo ogaatay yacni way u qaadan weysay inay saaxiibteed dhakhtarka ku soo ziyaaran weyso waliba ayadoo xaalad halis ku jirtay markaas oo ku dhashay operation ahayd yani xoogaa yar way isxumeysay oo way iscuqdadeysay gabadhi markaas Safa ahayd تلفونكي أي وعد مركي أي كسب بحذي وقلينك وأساعد كدب التلفونكي أي وعدي ملقى بناي وسكدع ملقى بناي سوى البوي وقع العليسي وحكى قبطة أي ويسي كبدي ويسك حناقضي أو حين هذا محل عسى حتى محي سيدان كودا حتى مكسو لي ويس تلفونك حتى إلهي مكوف ذي وحاد شيء هذا ومعاف ما تقبطة أنت سكلي حتى ميكو كور ويسي ما أنت هذه ويسك حناقضي كبدي صفية هاد waxaa la shan maalmood ayaa dhakhtarka ku jiraysaa shan maalmood kadibna waa ka bixaysaa shantii maalmood telefoonkeeda ma aysan bedelin walow maalin walba saacad walba second walba way waceysay laakiinse telefoonka qofka qabanaya malo gabadhii waxay dhahday maxaa talo gabadhii ku dhacay waa ee telefoonka qaban lahaa sidee wax u jiraan waay على إتحال شنتي مالمود أيال جاري صفيو أما صفا يعنقيدينا دكتورك ويكسو بحاين أيدي نكيدي يعنقيدي ويصوب بحين جوريجا يتمد جوريجا هو يدت أيا جوكتي كدبنا هو يدت أيا وحيكون هذا هو يعنقان قوى أنا جو حاربة إنا هذا كبدي مروي هاد مالكي إسبيتالك جلاي أيا يقدم بيس إلا يهدن وحورة كما هاي تلفوني كما قبنيسو إما سو وعيسو بل سببت أي وحان أسميس أي ربا إنا سو أجهدو عنقان قبني كذا وحكونا ورمالان تهاي هذا دكتور كصوب بحذي وأقلن تهاي ميل فريس وحيد هذي وركاس كدا يتر أديك مي وذا سامز أنا قالوا يوكو بحايو أو إذا نسيدو كلوي هذا شو يتر إلا أي أسبوع أو كلام تحتها سكسوك وجوب كل هذه وحدة إجران والأوجان لها إسكجوك ما يتر كبدي مجوجا يتر وبحا على حال سيدي أيوك صوت أديك وحونا كينا جوري مركز إيدكنايين gabadhi markaas ay Marwe ahayd ayaa la keenay
markay imaado waxay ugu timid Marwo oo qolkeedii jiifto oo cunugeedii yaraana hoos jiifo oo kadibna gabadhii isheeda ay meel dheer ay ka muuqato oo ayada dhan si yacni u duruufeysan oo isheeda meel xun ka muuqato ay aragtay markaas waxay dhahdeen maanta oo dhan ku soo wacay sababta telefoonka iga qaban weys maxay tahay maxaa ka wada gabadhii ku buuqda tii way iska oysay loo yimid Marwo ahayd way oysay safo waxay dhahdeen maxaa la ooynaysaa aniga intaas soo dhibaataa intaas soo nolosheedii qatar yacni ay galeysay hadda gurigaaga kugu imaado taasna kula fiican tahay haddana oohin miya igu sii dareysaa maxaa kugu dhacay markaas waxay aragtay isla markii in Marwo hooyadeed oo meesha taagneyd ayadana oohintii dhinac ay ka qabsatay markaas waxay dhahay sidee wax u jiraan ma wax ii sheegtaan maxaa u ooynaysaan maxaa dhacay maxaa iga dambeeyay maxaa qaldan maxaa jira yacni qoftaan waxa ma ogo markaas waxay dhahday maalinka ma ogeeday tiri ani adiga isla hadleynay oo aan ku dhahay guriga rabaa inaan soo aado cunuga hooya uga soo tagaa ama gabadha yarta hooya uga soo tagaa kadibna dhaqtarka kugu imaana soo kuma dhinaha waqtigaas kadib waxay dhahday odigayga ay soo wacay wata ku dhahay waan sugaayay intii uu soo socday uu wadada ku soo jiro waxay tiri telefoonka ku wada hadleynay anaga oo faraxsan oo qosleeno oo waxay tiri ma sha Allah tabarakallah farxadeena farxad ay dhaaftay ayaa waxay dhahday shil ayuu galay ninkaygii shilkii ayuuna ku dhintay shil aad iyo aad xun oo ahaa naf bala lama gaaray tiri uu geeriyooday marka waxay tiri xaaladaas ayaa ugu dhacday anigoo umul iska ah iyo arintii u qaadan waaye waxay dhahday yacni si aa kugu imaadaa fahmi waa haddana waxaan isdhahay gabadhii way qalan tahay murugteedii muruga ugu sii darinaan dhaha ayadoo qalan ha ordsiinin ha keenin guriga saas darteed ayaa kaaga gaabsada saaxiibey aniga adiga naceeba kuu qabo malaho inaa adduunka kugu jeclaha waa ogtahay inaad tahay saaxiibadeeda qaaliga ah ii dhow inaad tahay waa ogtahay oo wax walba xanuun iyo murug iyo farxad aan wada qaadan jirnay marka saas la ajligeeda ayaan kaaga gaabsada saaxiibey wax kale ma jiro saaxiibadii Safiye ahayd ama Safa meesha ay oohinaydan afka furatay ooysay waa la isku dul ooyay adiga gabadhii iyo maxay too Marwa iyo hooyadii inta way isku wada ooyeen adiga daqiiqada kadib waxay dhahday lagama yaabo inaa dhinacaaga ka baxo maalmahan adag maraysid waxaa rabaa inaa dhinacaaga taagnaado maxay too xanuunka kula qaybsado gabadhii markaas Safiye ahayd gabadha saaxiibteed Marwo ah xanuunkii way la qaybsatay ilaa ma gabadhii uu asaagi ka dhaco dhinaceeda ay joogtay cuntada ayada gacanteeda ugu karin jirto ayadoo umul ah oo qalan adiga markii asaagi ka degtay kadib ayaa markaan waxay bilowday in xitaa gabadha Safiye ahayd nafis yeelato oo xogaa yar farxad ay muujinayso maadaama inta ka horeysa saaxiibteed ay ahayd qof asaay saaran ayadana si ay u murugeysneed waxa dhacday maalmaha kamid ah iyadoo markaas quraac guriga uu sameynayso in ninkeedii uu ku soo baxo waa Safiye waay oo dhamaanta aad iyo aad u faraxsan tahay maxaa lagu sheego dhamaanta sidaan oo la farxan yani u faraxsan tahay asxaab marka qaar waxa dhacaysa anoo qisada ama hadalkii wada af Soomaali waxa ku dhajiro iyo gilmaano marka intaasna igu qaata ma fahanteen video inkastoo aan sii jarjaraayo oo waxyaabo badan oo qaladaad ah ka bixiyay ma fahanteen haddana inuu isku dayaaya inaan waxyaabo badan saxo odaygeedii markii uu ku dhahay Safiyo ama Safa maanta maxaa kugu dhac qof yahay waa qosleysaa maxaa lagu sheegay Safiyadaadii hore miyaa ku soo noqotay oo farxadda iyo qosolka iyo bashbashta ee ka muuqatay maadaama yacni bilahan oo dhan ee ka muuqdeen murugo iyo maxay ahayd yacni si adiga aad ahaydbo markaas waxay tirahaa aad iyo aad u faraxsanahay farxadeediina wax yar ayaa ka harsanay tiri intaasna haddii ay soo dhamaystirmato waxay noqonaysaa farxadeeda mid aanan dhamaanaynin weligeed ayay noqonaysaa ay tiri waxaan rabaa ay dhahday maanta inaan arinku soo bandhigo hay maxaa soo bandhigaysaa maxaa rabtaa waay markaas waxay tiri waxaan rabaa inaan guursid saaxiibtay Marwa ninkii waa ka yaabo dhahay adiga muwaalan tahay maxaa ka qaldanane adaa ku jeclaa adaa xaaskeyga muddo yara isqabnaa sanad iyo xoogaa isqabnaa sida ay leedahay gabar kala guurso oo haddana saaxiibada ah sidee yacni damiirka ku keenay dhiig ma lihid miyaa maxaa ku dhacay markaas waxay tiri aniga dhiig waan leeyahay tiri saaxiibteena waxay dhahday qof shisheeye igama ahanay tiri jacaylkeyga haddii maanta ila qaybsanayso waxay tiri waxa uu arkay malaho nolosheeda waliba waxay tiri gurigaana ugu noolaanaysaa bal indhaadeega intaas la eg bal fiiri
dadna waxay leeyihiin yaa ilaahu ninkeyga naagka usoo dhaweey naagtan waxay taagan tahay ninkeyga guurso ama saaxiibteeda guurso maxay too kadibna gurigeyga keen gurigeyga ku wada noolaanayna aniga iyo adiga iyo saaxiibtee waa arrin yacni cajaa'ibkeeda wadata waaye kolley waa wada dhamaysan doonaa ha degdegina idinka videoga ma fahanteen ninkii adiga wuu diiday wuxuu dhahay adiga hadda nolol waxaa ku jirnaa iska degan oo fiican oo farxad leh hadda ma aragtaa inaa nolosha igu kicisid oo adduunka igu kicisid oo berita masiir imaado oo waxyaabo badan yacni isbadbedelaan oo kaleenta maadaama meeshaan ninkii la wada qaybsanaayo masiira iska imaan karaa shaydaana soo saddexeynayo si walba waxay dhahday wax ka imaanayo ma lehay tir adiga ninkii si ay ku qancisaba adiga ay ugu celceliso arrintii ay ugu celceliso wuu ka ogolaaday waayuu dhahay haddii laakiinse uu dhib ka imaanayo wuxuu dhahay waxay dhib ka imaado adiga mas'uuliyadeeda qaadaayo waayay tiri way soo baxday gabadhii markaas marwe u timid marwe ka dhaadhicisa arrintii inkastoo ay marwe ka diiday ay dhahday mayay tiri marrabiyay tiri macnaha maanta hadda ay leedahay ninkeyga ila wadaag noloshaada ma raba inaa maxay hayto aniga بريتو بربر أما دباتو أنا قدرت كسو جارتو صاحبي جدا يترعن تاسوي وأذك تهاي على التحال قبل الصفاء هاد سوى البصاحبتي دوي وقنعسي وين كسر ما يسي إن نكذي لجورستو سدي أيام حياتو مروي محياتو صفن كذي اسكو جورسدي كنا قط حاسكي لبعض ميردي مركز صفي كيرات نقطي gurigii ayaana la soo guuriyay guriga maadaama uu guri weyn ahaa ninkan uu ahaa nin ka soo jeedo reer lacag leh family dhaqan uu ka soo jeedo gurigii ayay wada degnaayeen ma sha Allah tabarakallah sanado badan ay isla wada qaateen qof walbana wuxuu dhigi jiray noloshoodii way isbedeli doonaa waxaana la arki doonaa Safi iyo Maro oo madaxa isqabsaday oo israfaayo nin dartiisa waa la dhigi jiray laakiin intii oo dhamma aysan dhicin ma sha Allah tabarakallah labadoodii waxa ku dhahay ilma ma cadadna wala xisaabana u dhaleen ninkoodii marka waxa dhacday muddo sanado badan kadib in markaas xanuunkii kansarka laga helo gabadha Marwe ahayd waliba waxa laga helay xilli markaas uu qatar zaid ahaa xilli dambana la ogaaday ugu dambeeyna waxa dhacday in xanuunkii la geeriyooto Marwo marka sidii ay ku geeriyootay Marwo ilmihii Marwe ee ka tagtay ilmihii Safa inta waxa wadaysatay Safa iyo odageedii iyada isku heysay ma sha Allah tabarakallah ilmahana ma ahayn yani markaas ay dhashay naak la qabi jirlay ayada wada dhashay oo kale ayay u soo wada korisay wada jecleed saas ayay noloshoodii quruxda badan leh ee ku soo gabagabowday qisadeena meeshaas ayay ku egtahay bal adiga waxa rajeenaa fikirkaaga inaad nala wadaagtid haddii aad sameyn lahayd arinta ay sameysay gabadhan oo kale saaxiibtinimada heerkan ma gaarsiin lahayd waaye waxa rajeenaa inaad fikirkaaga qaybta commentiga aan noogu reebto muuqaalka daakashan like noo saar videogan asxaabtaada noogu sheegay asxaabay like badan iyo saar videoga dad badan oo arko meel fog noo u gaaro intaas waa codsi waa aniga dhiirigelin ay ii taam faanteen intaan videogan mid lamid ah ku kulmi doonana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh